tiirbaa naga baxay tusaale mudnaa gubbaa naga tegay tudhaalo badnaa tog baa naga gudhay tashigu ku xidhnaa tiriig baa dhamay tuulada u shidhnaa tilmaamaa go'ay tulmooni badnaa geerida timiyay xaq baa tahayoo talada rabbi baa dhimasho tebisee tanise urugiyo tiiraanya badnaa. bismillahi raxmaani raxiim. inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. laa yastaqdimuuna saacatan walaa yasta'khiruun. laa yastaqdimuuna saacatan walaa yasta'khiruun. fadhinta waa ilaahay baan dhiman. anigoo ku hadlaya magaca golaha abwaanada soomaaliyeed waxaan tacsi u dirayaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. si gaara waxaan tacsi uga dirayaa golaha abwaanada soomaaliyeed meel kastoo joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. sidoo kale waxaan tacsi khaasa u sii dirayaa qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday allaha u naxariistee abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub. maxamuud cabdulaahi ciise sangub wuxuu ahaa abwaan halgamaa soomaaliyeeda, wuxuu ahaa abwaan taariikh weyn ku leh fanka soomaaliyeed, wuxuu ahaa waa tiir ka jabay suugaanleyda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. waa tiir ka jabay aan dhihi karaa suugaanleyda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. waa abwaankii sameeyey oo ku dadaalay shacabka soomaaliyeed iyo afrikaba inuu ku guubaabiyo afkiisa oo ku howlgeliyo. kuma koobnayn soomaalida gudaheeda kaliya inuu wacyigelinayo ee wuxuu sameeyey heese badan oo afrika lagu guubaabinayo. waa fanaanka kaliya ama abwaanka kaliya ee 40 sano oo u dambaysay sameeyey ama soo saaray dhammaan fanaaniinta soo baxday 80% sangub ninka soo saaray weeye. sangub waa xilal kala gedisan ayuu ka soo qabtay muxuu ahaa suugaanleyda dhexdeeda sida maareeyaha tiyaatarka Hargeysa oo uu noqday agaasimayaashii tiyaatarka qaranka oo uu xubin ka noqday. sidoo kale wuxuu ahaa ninka ugu weyn ee ruwaayadii loogu daawashada badnaay oo socotay 360 habeen sameeyey waa ruwaayadii qabrigii jacaylka. sidoo kale wuxuu sameeyey ruwaayadii ugu dadka badneed oo galo muxuu ahaa waamaadays adduunyada dadkuna way matalayaan. waxa uu sameeyey lama soo koobi karo. wuxuu sameeyey heesihii afrika lagu guubaabinayay sida Yan Smith. wuxuu sameeyey afrika sideedaba sacbaan xoololeenahay la yiraahdo saxardiid. wuxuu sameeyey yani waxa soo koobi karo maaha. wuxuu kor u qaaday kooxda deegaan ee Djibouti. wuxuu kor u qaaday muxuu ahaayay kooxda deegaan ee Muqdisho isagu dhisay. wuxuu noqday gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed ugu dambeyntii oo uu hadda isagoo geeriyooday uu xilkaas hayay. sangub lama koobi karo taariikhdiisa. wuxuu ka tagay caruur fara badan oo ilaahay saalaxa ka dhigay oo muxuu ahaa wuxuu dhalay iyo wixii sii dhaleen waxay gaarayaan kontomeeyo qofooday ku dhow yihiin ilaa 20 ka mid ah oo isagu dhalay inta aan ka warqabo. marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed samir iyo iimaan buuxa Allah idinka siiyo. abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub samir iyo iimaan buuxa Allah idinka siiyo. haddaad tihiin suugaanley, haddaad tihiin muxuu ahaa shacabkii dhageystayaashahay oo la socday, haddaad tihiin ehel iyo qaraabo. عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال waxa u jeedaanin hadeer halka horteena fadhiya waa shakhsi ku weyn ummadda Soomaaliyeed, shakhsi ku weyn waxa weey fanka Soomaaliyeed, shakhsi ku weyn waxa weey abwaaninta Soomaaliyeed, waa shakhsi ku weyn waxa weey dhammaan dadkii madasha shirka isugu yimid Soomaaliyeed. waa adeerkeen sangub oo hadda waxa weey fadhiya geedka harkale hoostiisa isla markaasna ku sugan waxa weeye caasimadda boqortooyada Soomaaliyeed ee magaalada Qardho isla markaasna shaah cadaysa ku cabay halka wax inuu ka cad in shirka uu ku dhacay sidnabada. Salaamu calaykum sangub. calaykum salaam. adeer aad baan ku salaamay halka wax ka daawanaya dad fara badan adduunka daafisa jooga bal noo waran maxaad dareemaysaa adoo ku sugan Qardho? wallahi adeertay waa horta aan dal Soomaaliyeed oo kale dhani ima kale xigo waa aniga dabacadayda waayo meel kasta waa la soo dhaweeyay. hadda xamar baan ku noolahay sida la iiga warqabo ama la ii dhaweynay laakiin dhulkan maan arag hadda ka hor maana laba habeen baan u hoyday dhulkii isbedelay oo wada dhisan oo biyuhu jiifaan oo yaab u dhimanayso ayaa shalay la ii dalxiiskeeyay. waxaan shalay socday 100 kiiloomitir ayaa la soo tisaayay. waxa la geeyay magaalo la yiraahdo Waaciyo yaa la geeyay. waxa la geeyay magaalo la yiraahdo Carma. inta haddana waxa u dhaxeeya magaalooyin badan. aad iyo aad bay igu fiicneed inaan halkan imaado
waayo dalkaagoodan aqoonin waa dhibaato ka badani ma jirto marka aad iyo aad laakiin kolley aniga dad Soomaaliyeed oo qof kasta ay jeclayn ma arag ilaahay baa dadkayga ii sakhiray waxaan la leeyahay reer hebel iyo waxaan leeyahay waa kan iyo aan qolo gaaraan ahaado fanaaniin la yiraahdo maba naqaanba hebel iyo kan iyo gadhiir aad baa u mahadsan tahay marna ma istiri adigoo jooga koonka ayaa waddanku gumaysi galay muddo dheer baa dadkan Soomaaliyeed gobonimo doonay ahaayeen waxaan u filaayay inay tan oo kala dhacayso dee dalkeenna way haystay xabashi waayo markii si run ahaana loo dhabagalana hadda inooma yahay dal ballaaran bay amxaaradu inaga haysataa keliya waxaana filayn inay jumhuuriyaddii ku darsanaysa labadii midowday in baana filayn dee dir dhaba iyo beledweyne ama jigjigi iyo xamar dee waxuma kala aha amxaara labadaba waa dal Soomaaliyeed bay ahay saasaan u filaayay inay ina haysato laakiin maan filayna anugu in jumhuuriyadda ay qabsanayso balse waxaan isweydiiyaa maxaad u fili weyday inay qabsanayso dalka waa kii lagu soo duulay dalkeenna isagoo qoomiyada dhib kastaba ha la isu qabo ama wanaag kastaba ha la isu qabee ayaa lagaga soo duulayaan amxaaro oo laga dumiyey marka waxaad inaynu qorshaha ku darsanno war nimankan ka imanaya amxaarada ee soo socdaa maxay wadaan inaynu ku fikir ahay waxaynaan kuba fikirin jumhuuriyaddii Soomaaliyeed inay qabsanayaan yaan horta cidina ku fikirin dhacday xal baa loo baahan ilaa dhacday inna wada gaar xanuunkii kii jigjiga joogay iyo kii xamar joogay iyo kii boosaaso joogay iyo kii hargeysa joogay iyo kii gada joogay way ina qabsatay xal baa loo baahan halkii baa la raadin waay nin baa nin xabad ku dhuftay baa markaasuu yidhi waan ladnahay iga daa ladnidaaban kaa dilayay ladnida nafteedan kaa dilay oo ninkii dhulkeenna inagu haystay hadduu haadi naga helay inuu cadowga ahayd maxaynu u fili weynay inuu qabsanayo dhulkeenna ninkiinu ogeyn inuu cadow nahay oo cadow qaangaadha aynu nahay oo ilmaha kolka la yidhaha amxaariyo dhaartii oo dhan dhulku isla dhici jiray marka inuu ina qabsanayo haddaynaan feejignaan inaynu garanna ahayd wax sugaan ah oo aad ka tirisay ma jirtaa dareenkaas aad dareentay oo ah in waddanku maarta halis ku sugan yahay anigu maalintii la qaxayba waan diday oo waataan tiriyey jiiftadii la odhan jiray darinya go'wadatada waaba looga sii daray kudka dago qanjo u duro darinya go'wadatadan waaba looga sii daray waayo waxaan arkayay nimankii askarta ahaa inay dhanka kale u rogeen shaarkii oo dhan kale kolkii loo rogo kaakiga wuxuu soo baxaa nooc kale soo baxa deedna kolkaan arkay dadkii oo qaxaya uunu istaba ordayo uunu isdilayo oo dhibaataysan baan dariniyo go'wadata samey haddii kuu qaadaya waan kuu tirinaya hadba dunida yaab kale ha u diir xadhaadhine afka duub kolkaan idhi damiirkayga garashiyo jirdibaaxintayda dayn weyda hadalkee dagaallada ka soo hadhe ha akhriya dawaankee caawana balaandagu diga rogashadaydii doqon baa hallaabo doondoonistiisii markii dayday lagu helay hadalkama damani yidhi barraan duulka gelaya loda kii dareeshee docda ceelka ugu horay een fulintii ugu darin dugaaggu u loogaa diin bay niman yidhaahdeen guci roobku uu dii orodoo dabnoo keen dadku siday u sugayeen yuu dilaacay waagi ee dadkan aan cadaaladi daaqsingeen u soo marin duuggii ka soo hadhay badabkay ku shidayaan kudka dagoo qanja u duro darin iyo go'wadatadan jirikaan dawarisadan waba looga sii daray maxaa gabadh daruur u eg laga jaray dawaarkii maxaa oday duqoobo dalka qiimo ku lahaa dunyadiisii laga dhacay dumar iyo carruur iyo boqor duublih iyo oday boqolkii badh baa degay uu diiradluhu cunay dilaa iyo manaxe iyo daalin iyo ibliis iyo shiri iyo dugaag iyo dad qalmaata doox iyo dangaarlaa ku soo hadhay kudka dagoo qanja u duro darin iyo go'wadatadan waba looga sii daray askarigii dirayskii dacda kore u soo rogay jabhad loogu magac daray siyaasaday dumaayeen dadka ay u sheegeen ma guryahaaga dumibaa ma doolaala barabaa ma daaduuma caydhaa dulligiiyo dhibaatada ma ku dabargo'nowba
dadkan leeya raaca doolaaladoodii doonyuhu guraayaan ee dowlad xumidii male loogu sii daray kudka dago qanjo u duru darin iyo gowadatadan jirikaan dawarisadan waaba looga sii daray waageeray diidane ma dulqaadan caynsane mar la arag gudeel qaaf diga roga xidaarigu ma aqaana dooniye dulbaxriin wuxuu yidhi xidigaha dushaadiyo kala gara dabaylaha yaan dariiqu kaalano doonyaysay sugihii dawdhaafa wuu qaday gacal weyday doqontii laga daaday leexada doraad waayihii yiil maantay ka daran tahay kudka dago u duru kolka daro qanjo u duru darin iyo go'wadatada waaba looga sii daray diga roga xidaarigu ma aqaana dooniye dulbaxriin wuxuu yidhi xidigaha dushaadiyo kala bara dabaylaha yaan dariiqu kaalano ee ubadkan dabka u shiday 60kii dugsi u helay danyartaan abaabulay tacabkeedii laga dumi sida adhiga doonka ah ama weyla diriiqay ama doo dhukaan helay ama gari duqoobo dagal maray abaareed sawtadaan ku dheeriya dunida ceebta taaliyo dambigii islaamka irbadeedii lagu duray kolkay dihatay fooshii dambarkeedu waa dhiig 30 saniyo doogaad diraaciyo jeelaalkeed darkan aynu leenahay dad aqoon labaa yidhi dambiyadii ka dhici jiray duhur galay dharaar qula daalacantanaa dheer dowladahan horu maray washilaha dambiiluhu reeray dabgeliyeen oy isdila yidhaahdeen korkii dagalku barakaco daaduuma caydhi warkan ay daldalayaan daawo iyo cuntaba keen waxay uga dan leeyahay baalalay dab loo shiday kolka roobka uu doo nuur bay dareentaa ku dawow tiraahdaa dabadeed ku gubataa gugulahan damaaciyey waayaha daroorimay ee degal qandoorsaday wuxuu daaran yahay yaab juuq galowga daystee dambarsaday balaayada ee labada fiig damug duulaanka ka hor kacay masaadaal dambaysaa mise waa dareen tegay daa'us baa wuxuu yidhi nabaraan dawo lahayn markii aan istaawaday waa wixii idaashaday ee la iigu dawgalay dugsi waa bakaylo yuclulkii kusii diro dugaaguna wuxuu yidhi dabkii xalayta aan shiday doobka dhaxanta kama bixin haddii dirirka ururkiyo dayaxoo nagaadiya nayla janiya daba maro oo goluhu dabay raac ma nagaan dariiqii afyubdowga muu helin cadaaduhu dantood jire soo durug mariiqii nin lagagaa dul joogsaday allahdow ducay keen haladooda qaybtee ninba degal yar waageer qaybtii laga guur waxay daaqday ciinkii sharafteedu waa duug dambas bay haraatiday dacar baa la raamsaday caana daata dabadood nin qabtaa ma daaficin daayeer baa wuxuu yidhi dadkan wada xun yaa dhalay kudka dago qanjo u dur darin iyo goodatada jirikaan dawarisada waaba looga sii daray allah adoo dul badano deeqdaada noo badi allow kibirka doqonnimo dambi dhaaf naga sii allow way durdurisay aana dala ka kala jabin allah ayow dambi dhaafna sii kolkaan murtida hadalka ku siiyo dalkeen wuxuu joogaa tashan maayo ii tali kuu talin maayo aan wada tashan mayno aan kala tagno kala tegi mayno horta wuxuu waa intaa waxaa kaloo jirta halku dheg la yidhaah maxaa hadhay oo laysku haystaa balse gabayga waan boganayaa aan soo 2 gabay inaan bogtaan rabaa dareenkaygana waad ila fahmaysaa baan maray waayo nin weyn ilkahaaga soo dullamayda aan tiriyo dareenkan qabo adna waad ogtahay anna way soga ilaahayna way ogyahay mana doonayo kaamxaara la socda iyo kala dilaa midna inuu eedeeyo maxabo waayo dadkaygaa sida u dhigan maadaama dadkaygu sidaa u dhigan yaho saa aanu akhriyayo waan iska aamusi 2 gabay baan sakuu tiri gabayga u horreeya waxaa la yidhaha ooha marka iska aragga maqalkiyo idaacadaha hadalkaa waxaa loo abaabulay afrikaa la leeyahay itixaan ma gudubtide kaa xidhan albaabkii akhriskii dib ugu noqo awlaaddeedaa lagu yidhi qof madow aqliba male qaaraddii ayaan daranna afarteeda baallood olol baa ka kacayoo aqalkay dhisaayaan albaabkaa la xadayaa arrintay dhammeeyaanna waa la ibakuriyeeyaa afdhabaandhaw aayaraa lagu aamusiiyaa sida igadhka xoolaha maqaar ood la saaraa urse lagu yidhahdaa kuwan kule dawlad baan nahay inama dhaabaan nin walba nima iyagu soo samaystanoo maqaar unbaa sidii xoolihii maar la ursiiyaa maqaar ood la saaraa urse lagu yidhahdaa qor baaba aniga ii dheh anoo oday qudheetiya uur hooyo wada galay afkayguna waryaa yahay diintayduna islaam tahay aqalkiiyo tusmada iyo ardaaguna dhex noo yahay waxa laysu idhan jaray maan garanin anugu ee waxaan islahaa anigu kolkay 4 taajahiya adduunka u kala qaxeen hambadu waxun bay ogaan
waxaan islahaa anigu qabiilkay aamineen dhibkiisa kolkay arkeen ilmadaa dhamankooda qoynoo uurkooda saafi noqon waxaan islahaa anigu abuurtooda iyo sinjiga aabbaha soomaaliga ah aqalkay wada jiibsadeen aayaha waxun bay la hadhi waxaan islahaa anigu diintiiyo ashahaadadiiyo islaamnimadooda iyo allow toobay u noqon waxaan islahaa anigu aqoon-yahankooda iyo abwaaniintooda iyo adeegabaa u kici ee mar waxaan idhaahdaa aqligaa ka foorara marna waxaan idhaahdaa dhagahaa ka awdalan marna waxaan idhaahdaa alla kacabsi baan jirin marna waxaan idhaahdaa ukas bay u baabiin baryadii ilaahay aan ku oohobeeye ooha markiise axada ee bahay inuu uma uu damcado wuxuu u unkaa samays dhigaa orka lagu maqliyo dareen uriyaha sankiyo afkeenniya koodadkiyo indhaha iyo daamankiyo saablaydiiyo uurka iyo labada addin iyo gacmaha astaan dhadig iyo labo intaasoo suuraysan baa ilaahay nafta u gasha carruurtana oohintaa rabbayo uga dhigay afgarad oy ogaataa hooyadii inuu intifaacsi rabo ee soomaaliya heladaa kolkaada shahaadataa rabbiga u ka dhiga islaam shanteenna arkaanta iyo lixdeenna iimaanka iyo maxay aayaduhu dhaheen ilaahay uuna faray xadiisyadu aamineen rasuulkeennuna akibay aqoon waad leedahay intaa maad ku camal fashaan berigii asxaabihii udgoonow nebiga yaga kuwii inkiree kufriyey qoonkii abujahal lahaa kolkay in la dilo xugmeen adeeradii lagaga baqay ibliiska yimid shirkii ardaaba 5 wiil ka madha idayl maadu wada dishaan markuu arrintii ku daray kolkii aqbalkii ku dhacay kolkay aqalkii tageen kolkay sayid cali arkeen yidhaahdeen maxamed aaway kolkuu yidhi maanan arag kolkay raadkii aryeen abakor iyo nebigayagu kolkay godka aamineen abeesadii guurtaye abakor lugta raamsatee ilmada kululee ka timid inuu aakuru yidhaa adkaysiga uu ka baday ogaaday rasuulkayagu abeesadii tuuraye abakor gacantii marsheen ilaahu caafi yidhi ibliiskii jiray markaa ogaada inaanu dhiman inaad shahaadataan maxaad ku ilowsantiin inaydun is-aamintaan maxaad ku ilowsantiin islaamnimadiiyo sharciga maxaad ku ilowsantiin ilaahay in laga cabsado maxaad ku ilowsantiin ee wuxuu yidhi ilaahay addoonkayga kii dhiba adduunkiisa kii dhaca ka dheera agtay wuxuu yidhi ilaahay 14 boqolkaan anigu dhigay aayadaha tirada guud 4 jeer laba rogay ka akhriyaan ku camal falin imtixaankii wuu dhacay wuxuu yidhi ilaahay ruux haddaan ifka u dayn udgoonow rasuulkaan ka tageen adduunyada wuxuu yidhi ilaahay in aadmi tala xume qalbigiinna ooda ah ingeganayn qoyayn baa idin seejin aakhiro ma idaa sulsilad baad arkaysaan maqlaysaan oon idiin akhriyayaa rabbigiinni baan ahay awxaalahaa idhi in yar iyo in badan buu ma ilaaba qoray ee ilaahow ilaah kale ma jiro adiga mooyaan adigaa awood leh oon cid kale amar ka yeelay aakhiriya adduunkana adaa yeeshay idilkood iqra waxay u timid inay bartaan aadamaha nool waxaana alifka badan loogu daray waa umuur culus akhrina waxaad rasuulka ugu tidhi waa farriin adag kamaad qarin addoommada inaad eebbahood tahay allahu akbar ilaahu adaawood soomaali waa doontay si qalafsan baynu u doontay qabyaalad baynu ku doontay markii gumaysigu waddanka soo galay oo dhinaca gumaysiga ka baadinaya dhinacii kale dadkii baa laga ganacsan dadkii baa doomi lagu gurin dadkii baa badda lagu daaday wax aad arrintaas ayadana waxaad aragtay ma jiray shalay wax aad ka fiirsan ma jiray horta xaajooyinka waxaa la yidhaha curad iyo ugub xaajooyinka inagu furani waa ugub kolkay xaajada ugub tahayna soomaali oo dhan baa la marin jiro wax xeerkaa soo maray yaa la weydiin jira haddii loo waayo oo waxaas laga waayo qoysna curaddaa la gelin jiro xeer baa laga dhigi jira waxa ugubka ah marka anuu kama hadli karo waayo waxyaalaha dhacaya waxa cusubeen dee soomaalidu xeer hore u lahayn dad la dhiibe iyo oo cadowgiisa loo dhiibe iyo dad badda lagu gura iyo maati layska laayi iyo nin yidhaahdaa qorigaygu wuxuu uu gooyaan leeyahay iyo sodoh iyo wiil sodoh wahoon kale xishoonin iyo waxa inagu socdaa waxaa weeye ugubka marka in soomaali oo dhan loo ururiyo oy xeerkaa doonaan oo lamaba helaye wala waa sidii kiinta hasha ruwaagu ka dili doonay raqdeedii arkay ee haddana dadka dib u weydiiyey ee yidhi war hashan sumadaa iyo caynkaale waxba ma aragtay maya kolkii la yidhi
أم برق ذي وأنا خيب بالي عند من بان أدي يعني هاي إلى الهلين وأرنتها صعورة الهلين وأنا أجهي لكن اللي الصومالي ذو كتشطه وهو حكي له المال أي نكتمه وياه عليه وحن أنا ما أنت كأرني ما شفته ده حنا كوما على كل هذا الوعوق كل حدان كل وعوق إيش الشيء أي مسؤول إن بدها كده قال يا بدوي أنت تذكر إن كان اللي أقول هاي إن هو يتهاجر حبط اللي أقول رفته إن ويل هو يدي إنه الدلال لغياب إنه نسكا إلى عليه المهيس إنه الدلال أو قناي يقول ويلك صوب حيو وقصله هيا أبو إيه واحد مثلا تاي ما في عندها أنت استوى كجا شامنا يا إنا ويلك يسودي وح الله وح إنه بصعد عليه وأوه مركب وحن أديني يا أوه كأنت إن درجات كفقان وكبيا وكفقان هديب اللي أقوليه إن درجات من لما أقوله كبيانا لما أقوله إن إسكو السياسة دو إسايسة عليه لما أقوله أدنى لكم أقوله أنا كان لا يم أقوله نوح قرتين لما أقوله وحي إسايسة تد إسكو جروب أو غيب سنبا إسايسة ونكو أقولين إن يرون بنانا أنكو أقولين مركا سلاس وحن قباه إنينان إنه كتشرين wax ka qaban kara halka kan hadda socda sangub xageebu uga jira suugaan ahaan horta annaga abwaanada dhowr baanu hayno kuwa dawlad ku tirsan iyo kuwa qabiil ku tirsan waajiraday sameeyaan lala orordo iyo kuwa shacabka anu waxaan ku tirinayaa inaan kaga jiro geesta shacabka inaan kaga jiro أن كل واد دقيساني إنا وحنا دونيا سرباب قراعو أيان دونيا ومحانو قراعيا نمان قرنا ومبهن ننكي كرتين وانس فانا أنا ويضون أدون كانت تشوقين بان حرية سمية هل كان بانا إهي دماشيد واني دماشيد سيف بان لك الدمارين يا قال لي يقولوا وعلى إنك نروح الدمية يا قرن بالدمية ده كل صوغانته كشان نوع عانى لكن كل هذا كوش يقول هل الدمية مو يئي هل داية لما قرن تبا ودور قل مو يئي تمية يبان لما قرن هدر دور يسموه يئي دوهينا لما قرن إيه آوة يدرس كده دينكي أي كل هاي كي كدوني لها aawayay da'yarteeda dibadaha ku halowday qaarna la iska dilaayo kii ka doon lahaa dib u soo celin lahaa aawayay dad wanaagsan iyo culimo diini taqaano dul jalaali bilowda aaway roobkan da'aya agoonteeda dagaagtay in dameer niheeriye ku qaadan dasakii gelin lahaa aaway maydkan daguugane dibadaha ku uraaye هذا كدجايو كي كدوج لا دول كان إن الله ما يمن أنت أنا ندحل أوها قفل ودتنا حدود أنقول أنا عليه أنا وأنا سكوت حضر يا با مركا في عين استقوبة هيسموه إن الدقائق مروح على مثل هذا ما يبسنا دول كان حتى نروح على كان دلنا بان وحده لي مروح على مكة رئيستان حتى نروح على إذن دقيق مايو وأنت على إن إذا الله اشتروا أو سياسيين تا يا علماء الدين كا يا هويين كا يا صلادين تا يا دليرتا لبادي اشتري سبينا اللي شجوان شعلا وأيو ماشى إنه كان حساب بدل ما أنت تيجي وقبنا ده عني وأبان قحوتي أهل مركز الصومال لماذا وحكرنا يا قفك الدبت ذكي أن جدبو هلا داني لا جدبو ولا قادر وأنا خاطب مع عقلي قديرة تعلمي هلا إن كانوا بينو نرهبين بخطو بقسين جد مسارا بعد يلي بير مداشة بس كان واحد ضن عبد قفك كوتا شيء دينكي واحد نايل بود دبت كي يالين إيه هبرت وقا قوة شطيين الدليقان هذا نداين أمريكي سوي إنسان الله دري سياسة دقودين لهين دحية إيمان يثني داخلي جلسة دبت الصومالي إن تريد من الرعسانين دعاتي مويان وحان قفان دون يا داعد إلى إنو لشيء إنو دمسي إنو إذن كتشيرو إنو نطلان ولي أيان دون يا سياسة دقودين لهين دحية إيمان
taniya daakhili jirtee dibadda Soomaali in dunida meel raacsanayn dacati mooyaan sida idaha daydada sharcigii dacalka loo saaray ilaaliya malaaloobaya wada darleefoobay saacadow haddaad aragto waa inay diidaan isku dira abwaankii hadab iyo baasiin ee dibadda soo dhigay sirtii daydka lagu oodo ee noo ducay laga laayahay dirira mooyaan ee quray dawaankii haduma culaad raag saacadow haddaad aragto waa inay diidaan tacliintii dibira weyn kuwii doontay jaamici aqoontii ka dare iyo kuwii gararka sii daysay saacadow haddaad aragto waa inay diidaan mushtarkii dilaaliga ahaa dayn bankiga qaas dukaan iyo macdaar suuqa iyo doona iyo keene markabkii kolku soo degaba aan dadku arkayn dekadii wasiir iyo ku-xiga uu daldalay raabtay bakharadii dangaarlaha duuga iyo aase canshuurtii dulsaar badan hay daalin xeradiisa saacadow haddaad aragto waa inaydin diidaan ila tahayda kuwa soo diray aan dalkaba joog amaan degelkan barakacay ogayn siduu u daaduray ee carabka dalabtale wargeeska ugu deeqaaya ama daarra kala socday aan diinalyaba hayn ee dollarkii ay cuneen laysu daba joogo saacadow haddaad aragto waa inaydin diidaan werigii ma daahiro askari waa damiin falan waanu kaba ducaysaa qofkii diinta caabuday dunidu maamul uma dhibatiya meelda joogaba dibaddaa la geeya cidlaa lagu dugaalaa derbi adag haddaan lagu xanin indhaha soo furay xakamaa daqlaha loo dhigaa lagu daweeyaa wuxuu dallaaya dhiguga danuunay saacadow haddaad aragto waa inaydin diidaan dalka yagan burburay sheekadii dura la faallayey doqonnimo waa shila kolkii aan damani fofle dahabkayga kaydkaa gorgoro lagula doodaay amaydii hadday fooshay badrool ducaducaanaysa waa duriya daabica kolkii daalac nala saaray reer galbeed waxay naga dabceen gaadha dulucdii saacadow haddaad aragto waa inaydin diidaan waxa odayga loo diiday ee taranka loo daayay dumarkii carruurtay rabaan inay duduucaan wax maraykan uu damacsan yahay jiilkan dabargo beelihii danaaniyaya baa raaci duushada yuhuud baa damaandada ku qoran laysku soo diray badihii diinacaydhi yurub baa daf soo tidhi doofaar kuxaarkii gartow noqoy dalkeennii saacadow haddaad aragto waa inaydin diidaan haddiise aan dadweynahan arkadoon duliyo hoos teegay waa adhi dareera oo qoryele oo dhiigga daafsada darkaa lagu adkaystaa sidii dhooba daayaca orodsoodil baa lagu yidhaha kii dadkuu xigay waa wada damane iyo ma oga aan cidi daryeene saacadow haddaad aragto waa inaad dar yeeshaa ina suldaan dabuubtu lahaa waxaa daliilkiia cabdullaahi suldaan baa dugsi mele qabyaaldi waxay dumisa mooyaane dadkan la hadlayaa baan lahayn duxiye iimaanaanunbau damqanaya dhegu uma daloolaanee bal inay dalfoof tahay qalbiga doonni laga saaray wixii hore usoo daagsaday bay degashanaysaa ina suldaan dabuubtu lahaa waxaa daliilkiia umurdiisu waxay daareedaaye waa qolo anigoo godku degi jiriyo buuxinayn dalabka bal haddana waxaan dabcsanaya maandarka u seero daakhato iyo haddii cada leh iyo waama wada daaqdo dulcad iyo goday iyo jigjiga gedo haddaan doonni wada saaro dila iyo nugaal bari haddaan deris walaaleeyo docmo iyo hadday laaska qorantaydac wala daaqdo dooxii hargaysa hadduu webiga daan qaado degaamada lixda ah mudug hiraan deris walaaleeyo inta webi degto idil haddaan dan u heshiisiiyo culimmadu duceeyaan dekadii markaa jawhar iyo xamar baddaawey culimmadu duceeyaan iyo belisnamo dureeyeen darteedaa qabiil loo tusiyo boogdarkana eeg rag xun bay ku daba faysan tahay doorkan maanta ah dilaase inuu xukumo maya ayuu yidhi dareenkii dilaa inuu xukumo maya ayuu yidhi dareenkii isku daashay waayuhuna wawdiga rogayaae kuwa duca qabow kici hambada duurku yaaca horta waxaan ku shaqeeyaa iska xo qabso haddana ima daryeelin weliba fanaaniinta kale aad baan arkaa iyagoo la soo dhoweynaya ninkii tarsanhaa markuu joogay baan wanaagsanayn ninkan hadda qabtay xitaa nama xumayninoo wuxuu yidhi waxaan idinka bixinayaa wixii kira ah wixii raashina maalinaan dad badan ugu tagnayna ugu nasooriyeen $5,000 buu noo koray intaasina waa sooriyadiin marka taana inaanu helaa laga yaaba laakiin in badan hadda 1 sano iyo 2 bilood baan joogaa marka kolay dhib ma yara nin weynilkaaga soo duulamay dhacantiriye waa abwaankii weynaa maxamuud cabdulaahi ciise sangub oo dhowr iyo 20 sano kadib howlihiisii faneed dib uga bilaabay muqdisho markanse suugaantiisu waxay diiradda saaraysaa sidii dib loogu dhisi lahaa qarankii burburay sangub oo aan kula kulmay dibadda maqaayad ku taalla degmada xamarweyne ayaan weydiiyey heesaha uu sameeyey muddadii 14 bilood ahayd ee uu muqdisho joogay heeso badan baan sameeyey ilaa 45 hees baan sameeyey kolley waxay ka wada saabsan yihiin dhisidda dalka heestan mara naga dilaacday iyada maxaad ula jeeday waxaan ula jeeday dee maray naga dilaacday soo wixii nala tolo ma rabno qarannimadii baa dilaacday dee idna waa inaan tolo dawladda ay doorkaaga qaado dibadda iyo gudahaba siyaasadda diirka ka caddee marka inta keliyan ku dhimanaya waxaa weeye inaan waddaniga xusuusta ka daalin intaasaan uga dalnayahay
waayahay heesta baarcad iyana baarcad waxay ku jirtaa un dee madaxweyne noo duce kaasay ku jirtaa marka erayadeedii ilaa baarliin dabankii la dhigay iyo yaad kaga hadlaysay dagaalkii axmed gurey darwiishkiiyo leegadii baarliin dabankii la dhigay intaa wayna daba socdaane dantay naga leeyihiin iyo waxaan dooni kala fogaa madiidayna nabadda dalkeed madiidayna inaynu doodnaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo dhalinyaro yaryara ayaan ku arkaa heesi iyagoo qaadayo cod macaanood ee heesahaagii u dhiibtay marka dhalintaasna xagee ka keentay dhalinta waxaa weeye waa reer xamar horta waxaannu ku magac darray kolkaan kooxdii deegaan la socday ayaa kooxda waxaa loogu magac daray deegaan marka dhallinyartu waa dhallinyaro dhisnayd bay ahayd haddana dee kolkaan aniga iyo qoomaal iyo sabxaanyi iyo nimid afartaa waaweyn kolkaan nimid haddana way sii laba kaclaysay oo dee kii tumaayey iyo kii heesaayey iyo kii laxanka samaynay meel baan u wada fadhinaa calool xun ninkii qaba ha qaraxdo qofka calool xun ninkii qabo caloosha wax ku haysta soomaali kala qaybanaya allah carruurtiisa ha ku diro ha kala qaybsanaado waayo anigan baqaad in la hadlaayo raggaan ku jira unbuu qaranku ka burburay ragga yagaan waxba waayi jirin ragga yagii calanka lahaa ragga yagii la tixgelinaya waxaannu nahay qolada ugu horraysa ee burburku ku dhacay marka indhahaana doogsanaya qalbigaana doogsanaya waa idinku farxayna kolkaan arko nin sargaalah oo ama janna ama kornayla saraakiisheenna hore yaan leh ilaan dawladdii way soo noqotay marka midna waan ciidamadayda ayaan farayaa dhibku kolkuu inagu dhacaad raadisaa nimanka cadowga ah marka hore ha laga hortago sidii xalay naloo baadhayay ama caawa naloo baadhayay mar kastaba dalka u baadha